بروفيسور أحمد إسماعيل سمتر oo indhihiisa maanta ku soo arkay gobolkan Seleele xaaladda uu ku sugan yahay gaar ahaan degmada Seleele بروفيسورka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa asagoo xisbiga kulmiye ka tirsan iyo xaqiiqda ka jirta deegaankan indhihiisa maanta ku soo arkay kadibna halka ka cadeeyay in lagu soo qaaday boob deegaankan haddii ay tahay khayraadkiisii dhulka iyo kii badaba waxa kale oo halka ka cadeeyay wada xumida iyo deegaankii dhibaatada loo geystay macal 10 sanadood ee soo socday mustaqbalka dhulkii oo lagu tuntay oo deegaankii oo lagu tuntay haday tahay dhul daaqsimeedkii xooluhu daaqayeen ceelal waaweyn oo laga qoday oo xooluhu ku daadanayaan buu indhihiisa ku soo arkay dhibtii halka taalo arkay oo ka damqay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa professorka marka xigta waxa halkan gadaasheeda garab jooga ee dhaqameedkii dirmigeedadii deegaanka Toqoshi ee maalinta dhaweyd ka damqaday dhibaatada ka socota halka camuud laga daabulayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin odayadan waxay kamid yihiin odayadii halka dhibtu ku soo gaadhay ee kolkay is hortaageen boobkii lagu hayay khayraadka waxa duulaan ku soo qaaday camuudan dhulkan ama deegaankan nin Cabdikariin la yiraahdo waa mar labaad waxaan ku celinayaa ninka Cabdikariin wuxuu degan yahay Jabuuti buu degan yahay waa nin ganacsata waa nin dhigmiirata waa nin jecel had iyo jeer inuu ku anfacsado ama uu boob uu ku soo qaado deegaana uu lahayn deegaana uu ka soo jeediyo haddaba maanta hadii dadkii shicibka ahaa ee deegaankan deganaa ay ka kaceen fadhiga oo indhahooga ku arkeen dhibaatada ay ku hayso camuuda 24 saacadood laga gurayo deegaankii ee xoolana u nooleyn caafimaadna ku hayn waxbarashana ku hayn khayraadkoogii oo dibna loogu soo celinayn war haba la gurtay hadii wuxuu caafimaadkii laga tarayo ama waxbarashada laga tarayo ama adeegii bulshada kale ee biyaha sidoo kale ee wax laga tarayo wuxuu beehan lahayd waxa halka ka socda ee boobka ee loo turin ee sida arxan darada hameen iyo dharaar boqolaalka kun ee isrogooyin ay daabulayaan ee khayraadkii dhulka la baabiyay waxa ninka ka dambeeyay ninka Cabdikariin la yiraahdo Jabuuti degan waxa ayaan daraa oo nasiib daraa dadkii deegaanka ka soo jeeday ee Jabuuti jooga ee indhaha ka qarsanaya ninkaasi dhibta uu ku hayo deegaanka iyo dadka uu ku hayo waxaan leeyahay adduunyada maalin waqtigan sidan si ahaan maayo nin kasta taariikh ba ka hadhi doonta waxaan sheegay ragga deegaanka ka soo jeeda ee Jabuuti degan waa dhibta ninka uu ku hayo deegaankiina ee uu dadkiina ku hayo ee xooliya adduunyada uu baabiyay waarmaad ka damqan weydeen damiirku saxalku sidee wax niga si tahay waxaan li sheegayaa walaalahayo fadhiga ka kaca war dadkii ma noolo xoolihii ma noolo abaar bay kolka hore la ildaranayeen imikana waxa ku birtay siigo waxa ku birtay boob lagu hayo khayraadkoogii xoolihii ma noolo wax adduunyo u nool ma jirto dhibaato badan bay halkaas ku qabaan waxaan maanta uga digayaa marka labaad uga digayaa ninka Cabdikariin la yiraahdo wixii halka ka dhaca adiga ka mas'uul noqon doona dhibaatada halka ka soo gaadhay ragga hantida aad soo gelinaysa baabuurta aad soo lugoynaysiina waxaan u sheegay wixii halka niga hela in Cabdikariin baa nigeystay imika wuu ogaada Cabdikariin baa nigeystay dhibtaas imika wuu ogaada war walaalahayo dadkii way ka kaceen way ka damqadeen fadhiga way ka kaceen shalay hadaad iska guranayseen maanta way la xisaabtamayaan dawladdan waqtigeedu dhamaaday si socota way la xisaabtami doonaan insha Allah ta kale soo socotana waxay ka cusbanayaan hadduu alla yiraahdo in wax badan ay ka tari doonto deegaankan xukuumaddan Siiraayo 8 sanadood ay haysay boob bay ku soo qaaday hadii badda tahay hadii deegaanka tahay hadii dakhligooga ay tahay dakhliga ka soo baxay degmada Seleele waxa la geeyay ceelafeen iyo gar adag baa la geeyay waxa ka soo jeedo xilal kuma hayaan dadkii deegaanka caafimaad kuma hayaan waxbarashada kuma hayaan biyana kuma hayaan shaqana kuma hayaan war hadii tomato fadhiga ka kacayna waxaan li sheegayaa sidii shalay haan meesho imika waxa diga digayaa hadii si qaawinaana loo wada hadli doonaa oo fadhiga laga kacay war imika wixii halka ka dhaca ininka ka mas'uul noqon doona